السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برشاد حسابته مقعي وشينا جستير عاو حكال لنا simple interest قيبتي اللواد ساشين وحلادة هاي عاوة ابين راقي وقبر كنول عريقة صوماليات وحا مددن 5 سنو وتالي لعق بانكيغا دحي أحمد قري وحانا مدداس وفوشي لعقتهدي boqolkiiba 10 dulsaar ah waxayna noqotay $5,000 lacagta dulsaarkeed waxay noqotay $5,000 haddaba imisa ayay ahayd maalkii ay Ebian dhigatay bankiga waxaana laga rabaa lacagtii ugu horeysay ee bankiga ku shubatay waxay noo sahlaysaa formulaga halkan ugu qoran qaacidada halkan ugu qoran p waxay la mid tahay I loo qaybiyay r lagu dhuftay t p waxay noogu taagan tahay principal I waxay noogu taagan tahay interest r waxay noogu taagan tahay rate t waxay noogu taagan tahay time principal waxa weeyaan hantidii ugu horeysay ee bankiga dhigatay Ebian watana laga rabo inaan soo helno I na waa interest waa lacagta ay faa'iiday waa lacagta ziyaadada ah ama waa lacagta loo yaqaano ribada r waxa weeyaan boqolkiiba inta ay kordhay rate boqolkiiba inta ay kordhay tina waa time-ka muddada ay lacagtu taallay bankiga hay bal aan guda galno principal waxay la mid tahay I loo qaybiyay r lagu dhuftay t I waxa weeye interestiga waa lacagta ribada ah lacagta ribada marka waxa weeyaan waa $5,000 waxaan leeyahay marka 5,000 loo qaybiyay rate lagu dhuftay time marka hore rate ayaan soo helinaa rateku waxa weeyaan boqolkiiba 10 boqolkiiba 10 kan ayay lacagtu kordhay marka boqolkiiba 10 halkan kuma qoranayne waa inaan u bedelno decimals waa laga maarmaan waxaan dhahaynaa marka boqolkiiba 10 waxaan ognahay inay la mid tahay 10 loo qaybiyay 100 waxaan ognahay inay la mid tahay eber dhibic hal decimalkan ayaan ku qoraynaa marka eber dhibic hal lagu dhuftay marka time-ku wuxuu ahaa 5 sano markaasaan ku qoraynaa halkaas 5 waayahay principal waxay la mid tahay 5,000 loo qaybiyay eber dhibic hal lagu dhuftay 5 marka hore waxaa soo xisaabsataa eber dhibic hal lagu dhuftay 5 waa imisa calculator-ka tag eber dhibic hal lagu dhuftay 5 waxay noo soo baxday eber dhibic 5 waxaa dhihi markaa 5,000 loo qaybiyay eber dhibic 5 principal waxay la mid tahay 5,000 loo qaybiyay eber dhibic 5 5,000 loo qaybiyay eber dhibic 5 waxay noo soo baxday 10,000 principal waxay la mid tahay 10,000 oo dollar 10,000 oo dollar waa lacagtii ay dhigatay Ebian bankiga Axmed Gurey halkaa ayaan ku soo helnay jawaabtii leenooga fadhiyay intaan video lamida ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa nabadgelyo